dowladnimada bay tii geela ku dabaqnay halka sababta ka qurbaysa dowladnimadii baa tii geela bi'ad dhaqanka isaga ah ayuun baa la yidhi waa kursigeedii hadda sidii geeliba garagta calankii iyo madaxweynenimadii baa cali sheegatay niman badee Soomaali cudub ka noqon lahaa cudub noqday cudub baa waxa uu qaatay kursiga geeloodii mushkiladu halka aqliyada la iska afkay geel ay gido marka geelooda ay ilaashanayaan dadkii hareerta la iska taagaya cudbi ka geeloodii adiga wadankii ku dhashay ana wadankii ku dhashay oo hadda kursiga la leh ilaa madaxweynenimo imika ana la leh ayuu wuxuu qaatay haddaan kaba hadlo nin shisheeyo soo fargeliyay geeloodii adu waxa uu ka yimi wuxuu ka hadlayaa inaga joojiya shiibo war wadanka ku dhashay geelan waxa geel adigu haysta waan kula leeyahay waxa ku jirta xataa inta joogtay mutacalimiinta ahaa ee dareemay war waxa ma lihidin oo wada wada leh ayaa madax laga fadhiistay marka waxay yiraahdaan halkan ugu dheeraan Afrikada waxay yiraahdaan ugu dheeraan waliba baasha geeloodiga waa istaa la yiraahdo baasha ka kaalay miig oo dowladnimada uusan kaaladu haysato ilaa saa loo fahmo sidii gobonimadu say tahay ilaa loo fahmo aburintan iyo cadaadiskan iyo ninkan madaxayga tuusanaya markaan fikradeeda diibto hadda mid baa xalaaqaya miskiin oo baqteeyo oo saydo kala ah oo deema oo baqteeyo oo ka aanu hadlaya ah ayaa laya marka soo waa maxaad madaxweynaha gabadhooda wuxuu ka jeedaa shaqo ku galay waxaad waroo baqteeyo ayaa tabcan adaa ku hadlaya dowladnimada tii geela